አብይ አህመድ የፍትሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ህብረት ሰላም رئيسل وزراء dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa taliyaal cusub uu magacaabay militariga iyo sirdoonka wadanka Itoobiya waxaana jagooyinkaasi laga bedelay taliyihii militariga General Samora Yunus iyo sidoo kale Getachew Asafa oo ha taliyihii sirdoonka Ra'yisul Wasaaraha ayaa waxa uu magacaabay taliyaha militariga inuu noqdo General Sierra McKinnon taliyaha ciidamada cirka General Adan Mohamed ayaa isna xilka laga bedelay waxaana loo magacaabay inuu noqdo taliyaha nabad sugidda isagoo bedeli doona Getachew Asafa oo xilkaasi hayay 17 sano ee la soo dhaafay talaabadan waxa la qaaday dhowr bilood oo ka hor markii shaqada uu ka fadhiisan lahaa General Samora Yunus oo hawlgab noqon lahaa maadaama hawlaha ciidamada uu ku soo jiray 42 sano ee la soo dhaafay iyadoo goobjoogu yahay Ra'iisul Wasaaraha ayaa madaxweynaha dalka Itoobiya Mulatu Teshome waxa uu bilada ugu sarreeyay ciidamada ee laga bixiyay wadanka Itoobiya uu gudoonsiiyay taliyaha xilka laga bedelay ee wadanka Itoobiya General Samora Yunus nin la taliya sare oo Ra'iisul Wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya ayaa ku tilmaamay taliyaha xilka laga qaaday General Samora shakhsiyadii ugu muhiimsanayd ee militariga Itoobiya soo martay General Samora ayaa waxa uu kamid ahaa kuwii uu soo dagaalamay kana mid ahaa falaagadii xukunka ka tuurtay Mengistu Haile Mariam 1991 isla markaasina Mele Zenawi awoodda u dhiibay intii xilka uu hayayna waxa uu si aad ugu dhawaa awoodda sare ee Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya waxaana xilka laga qaaday 2 bilood kadib markii Dr. Abiy Ahmed uu xilka la wareegay si loo damiyo mudaharaadyo dawladda lagaga soo horjeeday oo socday Ra'iisul Wasaaruhu isbedel badan ayaa uu furiyay intii xilka uu joogay warbixin ay daawacday BBC-dana waxa lagu sheegay in shaqada fariisiga General Samora ay Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed siin doonto fursad uu dib ugu qaabeeyo xiriirka uu la leeyahay ciidamada wadanka Itoobiya toddobaadkan horaantiisii ayaa isbahaysiga talada wadanka Itoobiya haya ee EPRDF waxa ay shaaciyeen si buuxdeen oo aqbaleen isla markaasina ay u meel marinayaan heshiiskii nabadgelyo ee Algeria ee soo afjaray dagaalkii xuduudda Eritrea iyo Itoobiya talaabadaasina waxay soo afjari kartaa khilaafka ka dhaxeeya labada wadan ee dhaliyay colaadii ugu dhimashada badnayd ee xuduudaha Afrika ku yaala lagu diriro 1998